بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jecelahay maanta inaan ka hadlo diiwaangelinta ka bilaabantay gobolka Maroodi Jeex. diiwaangelintu sideeduba waxa weeye xuquuq uu qofku muwaadinka leeyahay si uu helo fursad uu ka talishka iyo maxaan ku rahaa maamulka dalkiisa uu qayb ka qaato sidoo awoodda shacbiga loogu muujiyo in dadkii matalaya iyaga ay hoggaanka u qabtaan. waxa weeye laba eray oo dadku adiga jeer isku qaldaan oo ayaamahan aan maqlaayay oo ragleeya diiwaangelintu waa xaaraan, dimuqraadiyaddu waa xaaraan. waxa weeye dimuqraadiyaddu ma aha kitaab muqaddasa oo xuruuf ta ku qoran aan la bedeli karayn. dal waliba habbu u qaataa uu leeyahay isagoo dhaqankiisa iyo caadooyinkiisa iyo diintiisa iyo akhlaaqdiisa eegaya. dalkeena Somaliland dimuqraadiyadda ka jirta waxay tahay dul la socota shariicada islaamka, inagoo qodobada aasaaska ka dhignay in sharci kasta oo la baaskaraynayo iyo arrin kasta oo go'aan lagu gaariyo masiirka ummaddu u ahaado midaan ka hor imanaynin diinta islaamka. dadka markaa ku leeyahay dimuqraadiyadda qaadano akhlaaq xun baynu u foodi doonaa ama wax saasi garanaysaa diinta ka dhan baynu ku kacaynaa, waa laga tabaabushaysay oo dastuurka waxa lagu dhigay qodobada aan la bedeli karayn, cidina ayna taaban karaynin, inuu yahay qodobkaasi shariicada islaamka ka dhigaya salka dimuqraadiyaddeenu ay ku dhisan tahay. taa xaaraanimadeeda horta halkaasaa lagaga baxay. waxa weeye bulshadu markuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala suuratu shuura in dadku isku doortaan oo dadku wada tashadaan oo dadku ninka xilka u qabanaya ay soo saaraan, tii uunbay aasaaskeedu yahay in dadka lala tashado oo ciddii ay masiirkooda u dhiibiyaan ay dadku tala ka gaadhaan. asxaabta iyo diinteena islaamku markii ay bilowga ahayd, inta asxaabta abaa go'aan gaadhi jirtay oo intay isu timaado ciddii ay magaranaysaa kelmadan lagu yidhaahdo almubaayaca ee ninka qaa'idka noqonaya inay dadka shacbigiisa ay dadka matalaya ay doortaan ayay ahayd. inaga dadkeenani waxaanu nahay dad boqolaal generation ku dhashay diinta islaamka. dhammaanteen waxaanu nahay markaa dadkii laga talagelinayay lala shawraayay inay soo saaraan ciddii xukunkooda qaban lahayd. maanta Maroodi Jeex hadallada laga keenay ee la leeyahay diiwaangelintu waa xaaraan waa bahal siyaasadeysan oo ujeedo gooniya leh. dadka reer Maroodi Jeexna waa inay iska gartaan, waayo markii gobolada kale maraysay lama odhan isla shay culimadu way joogtay kamay hadal. waxa weeye rag siyaasiyeed oo ku gabanaya diinta ayaa weeye ragga maanta ka toosay ee ka dhex toosay gobolka Maroodi Jeex. waxaanay tahay oo duran tahay xuquuqda gobolka Maroodi Jeex ee dadkii Somaliland oo dhammi isugu yimaadeen ee beelaha Somaliland oo degan yihiin oo gobol caasimadii ay ku taalo oo dadka aan cidna laga xigin oo cid waliba ay degaan u tahay markii xaqooda dadkaasi ay doontaan ee war dadkaasi xuquuqda ay leeyihiin waxaynu ku saleynaynaa tiro. markaynu gobolba tiradiisa la ogaado ee dadka degan ay soo baxaan ayaa wax lagu qaybsanaya, ama khayraadka dalka ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto. wadamada aynu horumarnay ee cadaalad markaynu ka fakirayno waxa weeye gobolkii 100,000 oo arday degan tahay iyo gobol 10,000 oo arday degan tahay, wasaaradda waxbarashadu isku si u siimayso. markaa waxaa lidinka doonayaa inay ismuujisaan, in xaqiina muujisaan, ina cadka leedihiin. halkaa Somaliland waa meeshii kulanka inoo ahayd, waa qabiilkuma salaysna Maroodi Jeex. reerka ugu bariyeeya ilaa ka ugu galbeedeeya waa deegaan u dadkaasi ma aha inay markay doorasho timaadana sii guuraan marka kalena soo guuraan oo dadkii jaarka la ahaa ay la noolaayeen ay la noqon waayaan, isku masiir ay noqon waayaan. taa waxa keenay marka tiradii lagu koobay ee lagu yareeyay. taasi maanta waxaad ku heli kartaan reer Maroodi Jeex idinkoo dhammaantiin iska diiwaan geliya gobolka Maroodi Jeex. taasi ayaa waxa ku heli doontaan xaq gobolku leeyahay, xaq caasimaddu leeyahay. waxa weeye toosa oo garta ujeedada laga leeyahay in la daciifiyo oo la naaquso awoodda ay leedahay Maroodi Jeex. waa idinka
dadka xaqa waayaya. berita ka maalin ma odhan kartid maxaan wax u waaye, maxaa waxbarashada gobolka intaa wax loogu qaban waaye, maxaa caafimaadka wax loogu qaban waaye. ma odhan kartid berito maxaa xildhibaanada loogu yareeyey. berito ma odhan kartid maxaa xuduud caasimadda loo samayn waayey sharcigeeda. haddaad adigii muwaadinka ahaa ee Maroodi Jeex deganaaba aad xaqii dastuurka ku siiyey ee waajibka kugu ahaa aad gudan weyday ood xuquuqdaadii tuurtay, xuquuqdaada sidaad u tuurtay baa loo tuurayaa. ogow, sidaad u tuurtay baa loo tuurayaa. watan xisbi ma laha, reer ma laha, beeli ma laha, qof ma laha. waa xaq aynu dhammaanteen wada leenahay. waxaana ninka laga doonayaa waxa weeye muwaadinu xaqa maanta aad leedahay haddaad garan weydo generation ilaa generation buu ku daba socon doonaa. adiga xaqaagii tuuray, adaa xuquuqdaadii tuuray, adaa tuuray waxa mustaqbalkii ubadkaaga adigaa baaba'shay. taasuu ogow. waxaan idin leeyahay si nabadgelyo ah oo sharaf ah oonad ku noqon codkaaga kaadhkaaga keliya ee xaqa aad u leedahay qaado. inta yareed kuyuga ugu jirto waxaa ka weyn xaqa aad ku waayi doonto. maanta ninka kuyuga u adkaysan waaye adeer berrito yaanu qaylinin, berrito yaanu qaylinin. reer Maroodi Jeex dadka deegaanka iyo dadka deegaan markale waa inta degan ee xuquuq ee ka shaqaysata ee residenka waxa loo yaqaanay deegaan ayay u tahay. war dhammaantiin isdiiwaan geliya. war xisbiga doonto goordhow inta doonto u food, laakiin marka hore qaado. haddaanad maanta codbixinta qaadan kaadhkeeda beritana codna bixin maysid. wax talo ood ku yeelanaysaa qarankana ma jiro. waayo qarankan waxaa doona ciddaa kaadhka haysata ayaa waxay soo saari doontaa ciddii xildhibaanada u noqonaysay golaha wakiilada, ciddii madaxtooyada u fadhiisanaysay. dadkaasaana ka talin doona. adiguse waxaad noqon doontaa nin dibadda ka jooga taladii waddankaaga, nin dhaxalkii aabihii ka qaday baad noqon doontaa. ogowtaa. intaasaan idinku soo koobiyaa. ma doonayo inaan arrimo kala galo. taad guud ee waajibka ee cid walba maanta saaran baan idiin sheegayaa. war xilkiina gudta. war berrito qaylo iyo buuq iyo waa lay dhacay lagama baahna. maantay taagantayee dhacso oo xuquuqdaada ilaasho oo kaadhkaaga qaado oo cidda doonto berrito u food. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.